kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii aadka waa barnaamijkii kaabaha odoriska. waxaan ku soo bandhigi doonaa kelmado ku kaafinaya islamarkaana ku kordhinaya maskaxdaada cilmi iyo aqoon intaba. waana barnaamij aad u xiiso badan, balse waxaan odorosyo kala duwan ku samayn doonaa habdhaqanka qofka. intaas iyo inka badan baan idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijkeena. waa mar kale iyo kaabaha odoriska. ma waxaad u haysataa in haddii aad jeeb maran tahay aadan waxba bixi karin? dad badan waxaa farxadooda nolosha ka qaada iyagoo ka fakera ama ka welwala saboolnimo iyo faqri. waxayna ku fakeraan markii aad wax hesho ayaad san kartaa ama wax bixin karta. haddaba ma ogtahay inay jiraan waxyaabo badan aad maalin kasta bixin karto kuwaasoo aan qiimo ku kicin ama lacag baka ahayn? kow, alle oo aad u mahadceliso, dembi dhaafna weydiisato. 2, faraha gacantaada oo aad ka tasbiixsato. wadda aad dhib ka leexisay, hadal wanaagsan aad ku hadashay, waayeel aad u naxariisatay ama aad caawisay, salaanta islaamka oo aad ku salaanto qof kasta oo kaa soo horbaxa, carruurtaada oo aad ciyaarsiiso ama cashar u akhriso, qoys burbur qarka u saarnaa oo aad nabad ka dhex dhigto, afkaaga iyo adinkaaga oo ummaddu ka ammaan hesho, waalidkaa iyo walaalaha oo aad u duceysay, qaraabo aad xiriirisay, asxaabtaada oo aad alle kacabsi ugu baaqday, aakhirana xasuusisay, xooggaaga aad si mutadawacnimo ah ugu adeegtay arrimo dan guud ah, bukaan aad cusbitaal ku booqatay, qof kurbo adduun haysto oo aad dhiirigelisay ama rajo gelisay. xaqiiqada intaa iyo in ka badan uma baahna wax lacag ah. waxaadna samayn kartaa maalin kasta waa sadaqo. waxaad ka helaysaa ajar iyo xasanaad. waxay kuu iftiiminayaan maalintaada. waxaa kugu jeclaanaya bulshada. waxaa kuu duceynaya dadka. waxaad dareemaysaa deganaan iyo farxad. isma ogide waxaad tahay taajir weyn. waxaa jira qof ay tahay in aadanba la saaxiibin. qofkaasi waxa ay gaadhayaan 5 qof. 5taasi qof weliga ha la saaxiibin, iskana ilaali saaxiibtinimadooda. saaxiibtinimadu waa xidhiidh saamayn badan leh oo dhex mara 2 qof. saaxiibka waxa uu saamayn weyn ku leeyahay dabeecadaada, habdhaqankaaga iyo shakhsiyadaada guud. nabigeenna salawaatullaahi calayhi wasalaam waxa uu ina faray inaynu ka fiirsanno qofka aan saaxiibka ka dhiganayno. sidaa darteed waxaa quman in aad la saaxiibto qof aad u hubto inuu yahay mid ku habboon in lala saaxiibo. waxaa jira 5 qof oo ay tahay in aadan la saaxiibin si aad u badbaadiso mustaqbalkaaga adduun iyo kana aakhira labadaba. Number 1, xanlowga. xantu waa dembi halis ah, waana dhaqan diinta islaamku aad u ceebaysay. inaad qof xamato waxay ka dhigan tahay adiga oo cunaya hilibka walaalka oo weliba meyd ah. adduunka waa sharaf dhac, aakhirana waa cadaab iyo ciqaab. ha la saaxiibin xanlowga. xaasidka. xaasidku waa qof jecel aadmiga kale. waxa hanti, hibo iyo haybad ay leeyihiin in laga xayuubiyo oo isaga la siiyo. haddii aan si kale u dhaho, waa qofka walba la jecel naftiisa oo la neceb dadka kale. xaasid ilaahay ma gargaaro ee ha gargaarsan. 3, guraca ama wuxuun sheegaha ama si xun fakerka. waa dadka wax waliba ka fiiriya dhinaca xun ee guraca. waa kuwa jecel inay wax dhaliilaan intaa mooye indhahoodu ma qabtaan waxa quruxda badan. filashadoodu waa gurac oo fiiradoodu waa gurac oo fikirkoodu waa gurac. sidaas baa noloshoodii oo dhammi u noqotay gurac. 4, qofka cabashada badan. cabashadu maaha dhaqan wanaagsan. wax waliba oo nolosha aad la kulanto
ku mahdi Ilaahii ku haysiiyey, hala saaxiibin dadka cabashada iyo catowga badan si aad nolosha adeega badan ugu gudubto himiladaadana aad u rumayso. 5 beenaalaha. Beentu waa dhaqan xun oo ay tahay in aad iska ilaaliso. Waa marin cadaabeed ay Ilaahay iyo Nabigeena salawaatullaahi calayhi wasalaam ceebeeyeen. Waa astaan iyo sumad munaafiq inaad la saaxiibtaa ama aad saaxiib ka dhigataa waxay kugu hogaamin kartaa inaad munaafaqada ka barato. 5tan weliba oo ka mid ah sidiisa ayuu halis ugu yahay aayahaaga dambe, kan aakhiriya kan adduun labadaba. Allah asxaabteenna ha ka yeelo kuwa xalaal ah oo sifo weliba oo xun hana ka yeelo kuwo wanaagsan oo iimaan buuxa leh. tobankan dabeecado haddii aad leedahay weligaaga guul ma gaari doonto, mana gaari kartid. Dadka leh dabeecadahan hoos ku xusan ma noqdaan kuwa guul ka gaara shaqada iyo ganacsiga, maadaama ay yihiin dabeecado qofka ka hor istaaga inuu nolosha horumar ka sameeyo. Haddaba qiimayn isku samee, oo haddii aad 10kan dabeecadood qaar ka mid aad leedahay, waa inaad bilowdaa sidii aad isaga reebi lahayd ama aad ku joojin lahayd. 1 waad hami weyn tahay. Waxaad leedahay gool aan caqliga gelin oo waxaad doonaysaa inaad samayso waxyaabo aan macquul ahayn ama aad u adag. Tani waxay noqonaysaa mid waqtiga kaa qaada inta aad ku haminayso inaad gaadho waxyaabo aan suuragal ahayn. 2 qaladaadka waxaad ku aragtaa fashil. Haddii qof kale uu sameeyo waxyaabo ka wanaagsan midda adigu aad hayso, waxaad isu aragtaa inaad fashilantay. Sidoo kale waad qarisaa qaladkaaga adiga oo ka cabsanaya inaad ceebowdo. Matid mid qaladkiisa qirta oo cashar ka qaata. Naftaada kuma qanacsanid, khaasatan marka aad qalad samayso. Kor iskuma qaadid ee waxaad eedaysaa naftaada iyo adiga oo aan lahayn kalsooni aad wax ku qabato, maadaama aadan is-aaminsanayn. Waxaad ka cabsataa khataraha, oo haddii aad samayso waxyaabo khatar leh waxaad ka cabsanaysaa inaad ku fashilanto, weliba adiga oo ay kaa maqan tahay kalsoonidii aad ku guulaysan lahayd. Sidaa darteed ayaad jeceshahay inaad dheeraysato waxyaabaha khataraha ka imaan kara, sida inaad ganacsi abuurato ama aad loolan gasho. Waxay kaaga dhegan tahay miraha. Kuma raaxaysatid in aad wax cusub barato ama aad gasho loolan xiiso leh oo aad wax cusub tijaabiso, maadaama ay kaaga dhegan tahay inaad natiijo gaadho. Wax kasta 100% ayaad jeceshahay. Waxaad tahay mid jecel in wax kasta ay yihiin 100%, oo haddii ay taasi la waayo ama ay dhici weyso, dareemaya in fashil ay tahay hawshaasi. Uma adkaysan kartid dhaliisha, maadaama aad tahay qof aad u qiimeeya fikradaha dadka kale. Haddana waxaad tahay mid aan aqbali karin oo aan u adkaysan karin marka lagu soo jeediyo dhaliil ama la dhaliilo shaqada aad qabatay. Ayaad cadaadis saartaa. Waxaad doonaysaa in qof kasta uu sida aad adigu wax u samayso ay u sameeyaan, oo haddii aysan wax u qaban sida aad doonayso oo laga yaabo mararka qaar inaysan macquul ahayn, ayaad eedaysaa dadka kula shaqeeya. Tani ayaa keenaysa in xiriirka kala dhexeeya dadka kale uu liito. Shaqada ma qaybisid, maadaama aad doonayso in wax kasta 100% ay noqdaan, isla markaana aad ka cabsi qabto fashilka. Ma aaminsanid dadka kale inay shaqada si fiican u qaban karaan, oo waxaad doonaysaa inaad wax kasta adigu aad dusha saarato. Waxaad tahay qof wahsasho badan, maadaama aad doonayso in wax kasta loo qabto si heer sare ah. Ayaad noqotaa mid wahsanaya, maadaama aad aaminsan tahay inaad 100% wax u qabato ama aadan waxba qaban. Tani oo keenaysa inaad fashilanto. Marka aad fahanto 10kan dabeecadood iyo sida ay xiriirka u leeyihiin, ayaad waxaad dareemaysaa in haddii qaar ka mid ah dabeecadahan aad leedahay inay sabab u noqonayaan in aad kuwo kalena yeelato, maadaama midba midka kale ay ku dhiibayso.
kaabi aad maanta kala socoteen idaacadda Hirsamo way nageynta.